السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا خياري ميل كاستيات جوجتان كسو داودا برنامجكي سبورتي هلا مالين كاستيات كلا سocodjaan مبارتينا يوتيوبكي ciyaaraha laabteestu maanta waxaan kaga doonaa kulamada ugu dambeeyay Champions League la ciyaaray iyo waliba kulamada kale caawa Europa League reer Qamsle ayaan soo kaleetay eegana waxaan soo kaleetay farqayn ku sameeyno kulanka caawa kulanka derby kulanka la sugaya garoonka weyn ee San Siro Stadium oo labada kooxood weyn isheelay doonaan naadiga AC Milan soo dhaweyn doonaan naadiga kale oo dhigooda ee Manchester United waana kulan runtii aan falaqayn ku sameyn doono Manchester United ay moodeen dhowr ciyaaryahan dib u soo laabteen halka soo kaleeto laacibka weyn ee kooxda AC Milan oo isaguna dib u soo laabtay garab caawa sala filaya inuu wajaho kooxdiisa hore ee Manchester United waxaan soo kaleeto eegi doona sideedda kooxood isku soo hartay ee Champions League iyo waliba kulamada calayto ayaan eegi doona haddaan ugu cusubta subscribe noo saar haddaan naga mitana like nagu dhirigi sayna la saacbo wanaagsan si aad u kaleeto iminka saxaabay meel kasta oo joogtaan ku soo dhawaada wararkaasi oo sportiga ugu dambeeya oo fidsan haddii aan eegno kulamada caawa la filay in la ciyaaro ee Europa League naadiga Arsenal ay waxay wajahay doonaan naadiga kale Olympiacos halka Arsenal ay leedahay 3 gool oo faa'iido soo kaleetay kooxda kubadda cagta Dinamo Zagreb ayaa waxay wajahay doontaa naadiga Tottenham Hotspur Tottenham ayaa 2 gool oo faa'iido wadatay halka Molde ay isarki doonaan naadiga Granada halka Granada ay leedahay 2 gool oo faa'iido Shakhtar Donetsk iyo waliba Roma ay isarki doonaan halka Shakhtar ay leedahay 3 gool oo faa'iido naadiga AC Milan ayaa waxay soo dhaweyn doonaan naadiga Manchester United inkastoo ay lugtii hore ee Old Trafford ku soo idlaatay 1-1 Rangers Slavia soo kaleetay hal ayuu ku soo idlaaday waxaa soo kaleetay sarki doona naadiga Villarreal iyo Dynamo Kiev halka Villarreal ay leedahay 2 gool Young Boys iyo Ajax ayaa 3 gool leh haddii aan eegno kulanka caawa kulanka la wada sugayo kulanka derbiga kulanka dhaxmari doono naadiga AC Milan iyo waliba Manchester United inkastoo oo in lugtii hore Old Trafford ay ciyaarta ku soo idlaatay 1-1 gool u dhalay ciyaaryahanka daada yar ee naadiga Manchester United ugu dambeysay ayaa kooxda kubadda cagta AC Milan heen goolkii buraajada caawa waxa lagu banlasay garoonka weyn ee San Siro ay inta badan ka camalaatiyo naadiga AC Milan wararka faracada la soo kale eegi doona waxa dib u soo laabtay tababarka buuxa kooxda kubadda cagta Manchester United dhowr ciyaaryahan uu ka mid yahay ciyaaryahan Paul Pogba, Van der Beek, De Gea iyo waliba ciyaaryahan Cavani inkastoo ognahay in agaasimaha guud ee United uu sheegay in ciyaaryahan Cavani uusan ka mid noqonin ciyaartoyda u safartay xagga dalka Talyaaniga taas ayaa soo kale la xiriira arrimooyin qaas oo ilaa iminka la sheegin waxaa soo kale la sheegay in ciyaaryahan Cavani la filay kulanka dambe United uu safan doono wararka qaarkood ayaa sheegay in ciyaaryahan Cavani isku faraxsanaan joogista Old Trafford la filay inuu iska tago garoonka Old Trafford haddii aan eegno sababaha la filay in Manchester United ay ku reebi karto kooxda kubadda cagta AC Milan midda koowaad waxa la dhigi karaa ciyaaryahan Cavani oo ah ciyaaryahan khibrad leh sida ciyaaraha Champions League iyo waliba ciyaaraha kulamada weyn ayaa United ka maqan caaw taasi ayaa laga yaabaa inay u horsoodayso United ka harto Europa League midda labaad oo aan dhihi karno oo United ay ku heli karto ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic oo dib ugu soo laabtay shaacada rasmi kooxda kubadda cagta AC Milan inkastoo aan lahaynin wararka saxda ama in ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic uu safto caawa waana ciyaaryahan horey u ciyaari jiray naadiga Manchester United midda saddexaad aan dhihi karno ama u sababeyn karno in Manchester United ay kaga hari karto Europa League qaab ciyaareedka iminka ay muujinayaan naadiga AC Milan soo kale ay ku jiraan kaalinta labaad xagga kala horeynta Serie A dalka Talyaaniga iyo waliba qaab ciyaareedka isku cirka iyo xagga gool dhalinta ay inta badan iyo isfahamka naadiga AC Milan ciyaareedkan ayaa laga yaabaa inuu horseedo in Manchester United guud ahaan laga xariibtiro Europa League dhanka kale haddii aan eegno Champions League habeenku calaytiya kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa waxay 2-0 direen naadiga Athletic Madrid guud ahaan haddii la isku celiyo ayaa wali heli kara in kooxda kubadda cagta Chelsea ay ku badisay 3-0 inkastoo ognay in lugtii hore ay Chelsea ku soo badisay 1-0 gool qurux badan uu dhalay ciyaaryahan Giroud waxaa soo kaleeto arintaasi ka hadlay tababaraha kooxda kubadda cagta Athletic Madrid Simon oo sheegay
in runtii ay tahay qaab ciyaareedka muujiyeen naadiga Chelsea yahay mid fantastiga mid la dhihi karo waa ay dadaaleen oo u qalmaan inay u gudbaan quarter finalka Champions League tababare Simon ayaa tababare qabiira soo kale u dhashay dalka Argentina dhowr jeer gaarsay kooxdiisa Atletico Madrid heerka ugu wanaagsan ee Champions League soo waliba gaarsay ilaa iyo finalka haddii aan eegno iminka sideed kooxood isku soo hartay quarter finalka Champions League oo lagu balansaday in la ciyaaro 6 ilaa 7 Abriil ama bisha afraad kooxaha isku soo haray haddii aan eegno waxa kamid ah Bayern Munich ahna kooxda haysata horyaalka Champions League Manchester City, Real Madrid, PSG, Chelsea, Porto, Liverpool iyo waliba kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund isku aadka ayaa la filayay in la sameeyo maalinta Bridge haddii Berali ka noqdo soo kale semi-finalka ayaa la ciyaari doona 17 ilaa 18 bisha Abriil soo kale finalka ayaa lagu balansaday in la ciyaaro 29 May ama bisha shanaad finalka wuxuu ka dhexi doonaa dalka Turkiga siba garoonka weyn ee Atatürk Olympic Stadium ee ku yaalo magaalada Istanbul sideed kooxood isku soo harto haddii aan eegno qaab dal ahaan saddex kamid ah waxay ka soo jeedaan dalka Ingiriiska 2 Jarmana 1 Spain 1 Portugiis iyo 1 Faransiis guud ahaan haddii aan eegno Champions League waxa ku guuleystay sanadkii la soo dhaafay kooxda kubadda cagta Bayern Munich hase haatee sanadkan ayaa moodaa in laga yaabo in Manchester City ay ku guuleysan karto Champions League qaab ciyaareedka ay soo muujinayaan Champions League ayaa mid fantastic sportiga saxaabay wanaagsan